madhab madaahibta islaamka ka mid ah waana madhabka dadka Soomaaliyeed ay raacsan yihiin. Haddaba waa madhabkee? Waa madhabka Shaaficiga. Qiyaastii dadka madhabkan Shaaficiga raacsan waxay ku dhow yihiin 640 milyuun. Waana madhabka saddexaad ee madaahibta afarta ah. Maxamed bin Idriis oo ku caansan magaca Imaamu Shaafici ayaa ku dhashtay magaalada Gaza ee dalka Falastiin sanadka hijriga markuu ahaa 150 halka miilaadiga ay ku beegneed 767. Madhabka Imaamu Shaafici waxaa saldhig u ah Qur'aanka Kariimka iyo axaadiista Nebiga, kuwaas oo ah halka lagala soo baxo fiqiga Islaamka. Madhabkan Shaaficigu wuxuu ku faafay adduunka dacalladiisa, waxaana ku dhaqma madhabkan oo raacsan wadamada kala ah Soomaaliya, Masar, Indonesia, Falastiin, Urdun, Syria, Yemen, Malaysia iyo wadamo kale.